qaasin dawladii aadan cadde oo kaliya kuma uu koobin eedii iyo suluugii uu qabay balse dawladihii ka dambeeyay oo dhan waxa uu ku halgaaday gabayo uu kaga duraamanayay inay u jeesadaan maxasta Soomaaliyeed ee ay duubka u sidaan wuxuuna qaasim ka mid ahaa suugaanleydii sida weyn uga dhiidhiday gabood falladii cagajuglayntii gabagabayntii iyo gumaadkii ay ku kacday dawladii kacaanku ee uu hogaaminayay eebbaha u naxariista Jaale Maxamed Siyaad Barre abwaan qaasin oo arkayay darxumada ka muuqata magaaladii uu ku dhashay Hargeysa iyo sida dadkeedii loo duleysanayo ayaa yiri Hargeysa ana ka hurdee laguma haysteene haddaan soo hambaabiri lahaa heec ma noqoteene horaada carab kuma nuujiseen hooyo been iyo halaq iyo abees kuma game hadhacyadaadii iyo huluulaha colkuuguma jireen soo hamaahsadaye antidaamu weerareen horar waxoobaaye hareertaada lama soo fureen haawe doobadahe aweenkiiyo carruurtaad lahayd lama halgaadeene hablahaaga muu guursadeen haybti garan waaye hog daluuna kama qayliyeen hanadadaadii hanuunshiyo indhergaratadii hode ma dhaafeene hadhaal laguma sheegeen raggii noo horayn jiraye hoos looma eegeen kuwii howlgarka ahaaye hoosaasiyaal uma shireen horumarkaagiiye maad hoos dhigteen labada sacab hooge baadiyahe habro looma doorteen golii haybadda lahaaye hiirtaanyo iyo ciil wadnuhu ima hiqleeyeene haasaawaha iyo sheekadii lama hagoogteene ninna hadalka kama dhowrsadeen kuu hagaag bidee hootada afaysali boqnaha igama heerteene dhammaan hooballadii may qaxeen hibadu saarayde hogyaqaanadaadii murtida lama halleeyeene heesaagii lama qoorsadeen hire cadaawaaye ha yeeshee habeen guul leh baad heli ayaan dhowe had aan sii fogeyn waxaad sugtaa heego iyo roobe hilaac caafimaad baa ku mari hogol daruureede heeryada rag baa kaaga furi hub iyo baaruude hiddadhalad wixii aan ahayn waa lagaa hudine hor ilaahay waan kaa xorayn hawshan kuu timiya insha allah hoom nabadgelyaa lagugu soo hoyne